toban sano ku dhawaad maxaa uu tahriibis wadankan weligaa ma ku fikirtay in oo aad ka tahriibtid bis wadan kale oo aadi waa oo uu tahriibis ilaa hadda isla joognaa yani guri waxaa jooga dad oo Turkiya jooga oo marti u ahaa cun se weheen wallahi been ku sheega ugu dambeyn emergency aan ii qaad لوي هات قولك سو أنا أو تركي ما أبغى استحالها فيري أنا هات كورسارة يقول عليه ما هات لين مرك واحد له يا وكذا وجيسا emergency الإيقاع فلا ما لي بصوت أي بحر كاسة يقلنا ده مرك مرت تركي زائد وحنا وحنا ويجعلين أصحابته وايد من سلامي كنالك كسو دوادا أنا ومعي حبيبة كنالك حبيبي وكسو دوادا ما أنت موضوع سواء إذن هي وحا إذن هي قف عصب ولكن حالية أحمد حالية أدي أنا وما سنتهاي ما أنت ما دام كنالك أونلاين أهان أو صوق الشيء إزبردتك هذا ما صنت حبيبي رنتي هرت مرة ورا يا ذاك ما إنا يوسع زونتي كنالك رنتي بقول الصعدة وحاول مقالة سودي تيت إيو سيدا dadka kugu xiran isku xirantii runtii waa wax aad ku daysho mudan magacaygu waa Axmed Xaliye waxaan ku noolahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxa xabiibo ma kala fogeena laba magaalo kala joognaa inkasta pandemigan darteeda waxa uu isku imaan weynay laakiin hadda muuqaal in asla sameynaa fursad helnay runtii corona dadka dhibay naftu noo keenay marka ilaahna qaado marka asxaabtiina waxaan leeyahay dhamaan asxaabta aad barasho wanaagsan dhamaantiina insha Allah intaan in badan insha Allah waa is arki doonaa aad ma soo adiga mudan xabi markale mar saddexaad kana ku soo dhawaad su'aasha kale oo maanta oo rabo in aan ku warsado waxa waaye maanta wadankan maadaama oo ay tahay qof oo ku dhawaad 10 sano oo joogo 10 sano ku noqonaysaa oo malena insha Allah marka 10 ka sano maanta سبتمبر إن شاء الله ما شاء الله مركا توان كسنة ما أنت وضن كان أول جوكتي توان سنة جوكتا توان كسنة ما أنت محي كورة هاي مس 10 كأ ممكن مس وحيالا أنت فايدين كأمن الكفاية محاول وضن كان جويست سؤال جوكتي والله رنتي هرتا نلشي ذا مركا هالكاني ما رنتي وحا مسنا هاي إن بيج kale ay furmay oo runtii imaado dal oo shisheeya imaado oo halkan ay ogtahay waalidiinteena iyo family-geena ka soo fogaanay halkan ina ku bilaawno waxbarasho nolol cusub dad cusub luqad cusub runtii waxay ahayd experience aad iyo aad u weyn ahayd ina halkan imaado runtii waxyaalo aad u badan ka bartay meeshan sida hore u sheegay qaabkan adduunka hadda uu eegayo oo qaabka view-ga dadka kale yahay dadka waxa ka aaminsanahay waxa soo dhan in badan ka bartay sidoo kale gaar ahaan dalkan Turkiga shacabkooda iyo dawladda sida isku xiran yihiin dawladda muhiimadda ay leedahay maanta diisan dal ay kala dambeynaysan jirin ay nawadaysan jirin runtii inay waxba kala soconaa arkay hadda maanta dalkan Turkiga waxa canshuuraha la iska qaadaa laamiyada la dhisaa waxbarashadii waa dadka waa la caawiyaa oo iskuulada tusaale ahaan dadka waxa la siiyaa scholarship baa la siiyaa jaamacado oo iskuulo oo dawladeed ay leeyihiin jaamacado dawladeed ay leeyihiin waxa soo dhan waxa arkay in ay muhiim tahay markasta inay meesha kala dambeynay jirtay dawladda jirto ay hadii ay dawladdu iyo shacabkana isku xiran yihiin ay shacabku ay daacad u yihiin dawladduna ay u adeegayaan shacabka in ay dal ay hagaagi karto ay horumar gaari karto oo u jeedna maanta dalkan waa dal aad u weyn dal aad u awood badan waaye noloshana waa saa hor uu sheegayba noloshu kaliya ma aha waxyaabaha aan iskuulka aan ku baranayno waayo aniga maanta waxyaabaha iskuulka ku bartay waxyaalaha banaanka ku bartay iyo dadka aan la dhaqmaa ka bartay runtii waxaa dhihi karaaba waa isku mid waa 50-50 waa oo noloshu halkan wax badan ay bartay waxyaabahaasna aad bay muhiim tahay qofka inuu ogaado waaye sanad kasta mise daqiiqad kasta ku socdo noloshan inay ku tahay inay sii socoto waqtiga ay sii socoto waqtigana in laga faa'iideysto ay muhiim tahay marka wallahi runtii waxyaabaha aan dalkan ka bartay aniga isku kordhiyay runtii
meeshaan kuma soo koobi kari oo aad bay u badan yihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan aan dhihi karaa dadkan Turkiga waxyaabaha ka bartay martisoorka iscaawinaada iyo waxaas oo dhan ka mid ah maanta in qof kaliya badbaadin karo martida qofka si loo soo dhaweeyo waxaas oo dhan way maanta aniga ajnabi ahayn ma aha aniga luuqada markaysan wax markaysan waa imaanay waxa loo soo dhaweeyay boqortooyo oo wax walba oo waynaga dhiseen marka taasna inay muhiim tahay qofkana marka adiga soo dhaweysid inuu ku jeclaanayo oo markaas uu marka u arko sida adiga qofka soo dhaweysay markaas buu asin ku soo dhaweysana marka runtii waxyaalaha dalkan ka bartay runtii halkan lagu soo koobi karo insha Allah hadii wax kale lagu soo dhacanayo oo kulli wadaay doonaan aad uma santaa xaliye deema wax dadkan zaaid marti u jecel yihiin tan oo ani oo zaaid ku uleeyahay waaye marti zaaid u jecel maanta de marti arkaan qof oo ajnabi ah de arkaan waxay dhahan isla markii baahi ma ku heeso cunto saamiyeeshay misguri hadii joogto gurud aad oo martise ya galaaskan biyaha lagu siinaa laakiin shan xabba lagu siinaa hal xab maaha ما شاء الله مركز dadka zaaid u fikiraan horta adiga in badan adigana in badan aad joogtaa marti Turkiga waa u noqotay waa ogtahay cuntada la cunaayo iyo macmacaanka la cunaayo iyo macnaha aniga waxa u baranay wax yar in noqotay iyo bariis iyo baasta in dhac isku siino oo meesha lagu kala tago baranay laakiin Turkiga waxa marka hore sharbada inuu bilaa cunto waa lagu dhigi jiray adoo dhergay xataa lagu sii wada may lagu sii wada maanta heerkaas ay gaarsiintaa runtii zaaid u jecel wallahi xataa qisa dheer waa laakiin qisaan hadda ka hor igu soo dhacay markii aan dugsiga sare ahaa xoolaha wax xishoonaa markaas luqadan si fiican ka seenin cunto baad guri waxaa jooga dad oo Turkiga jooga oo barti u ahaa cun se u heen wallahi been ku sheega ugu dambeyn emergency aan ii qaaday wiligay bilow hadda guri kasta oo ani aad oo Turkiga maamo kasta waxaa dhahaa fiiri ani hadda kor saaray ugu dhacday ma hadlin marka waa hadlooya waa ka daba geysaa emergency aan ii qaaday falema lagu soo taay baxarkaas ay gelinna dhaha marka marti Turkiga zaaid waxa cunaa way jecel yihiin wallahi marti soorkooda waa meeshii la eegin markinaya Soomaalida ay markii la saaqliyo waxa waaye ma isku barbar dhigi karaa ma sha Allah wallahi dadka marti jecelka zaaid marti jecel yihiin حالي هاتي أنا وما صنتها هاد مركا سؤال شكله وأني أورا وإني كورسة هرت أصحابي waxaa idin haya warar waa inaan idin sheego maanta waxaa idin haya surprise oo yaris oo idin sameeyay markasta TikTok ee asxaabta oo TikTok oo anaga oo ila socdaan asxaabtaas hadda kor way soo warsadeen geedkaas ma ujeedin oo gadaal oo jadwalka oo wax lagu qaraayo jadwalkaas aan ku degsaday ani casharada wax akhriska maalme iyo jadwal maalmeedkii waaye marka ani iyo walaalkiin xaliye maanta waxaa rabnaa surprise-kaas in oo anaga idin soo jeedino surprise-kaas geedkaas in oo ani qof oo hadii inaa u siiyo oo baqtanisiib mise dadkan meeshaan jikilise u dhahaan marka waxaa rajaynaa in oo ka qayb geli doontiin kaliya geedkaas ma aha kan ku jira kan waaba kasaysiinba asxaabta oo make up-ka way ka saayaan make up mise waxyaalihin kale oo rooseetada waxyaalaha kale make up-ka la saartaa laakiin anisaana u isticmaalaa qalna ahaana u isticmaalaa marka geedkanne kan oo soo daray insha Allah kulligood marka hal qof aan doona geedkaas asoo cusub kuwan kale ay oo cusub kulligood isbuuc horteena insha Allah in oo waxa raba oo surprise-kaas oo idin sameeyo geedkaas qalinkiis kan waaye qalinka caadigiisa buurda waaye kan waa ku tirtiri kartaa iyo hadaa rabtid waxaaba si samayn kartiinbo mandil oo caadi ah ku tirtiri kartiin saarabtiina oo isticmaali kartiin kaliya waxa laga rabo idin ka rabo in oo adin ka sameeysiin kanaalka oo walaalkay xaliye in oo subscribe u saartiin kanaalka in oo subscribe i saartiin iyo TikTok iyo Instagram-ka in anaga oo noo wada saartiin kulligood hoos ku soo qoraa linkiga hoos soo dhigaa Instagram-ka ka sameyn doonaa insha Allah xaliye Instagram-kiis in follow dhahdin iyo Instagram-ka in idin follow dhahdin qofkii ku guuleysto waa idin soo sheegi doonaa asxaabtiina dadkiin kulligood waa isku gudbin kartiin waa maasantihiin xaliye had marka su'aalka la rabaa in oo ani hadda ku warsado su'aashaasi oo ah
waxaa tahay qof oo maanta waqti badan oo meeshaan joogay waa og tahay arday badan dad badan mise soomaali dad badan inta imaadeen soomaalida keliya maaha ajaanib kale dad kale wadamadan kale ka imaanayaan way jiraan wayna buuxaan dad badana waxaa jira wadankan tahriib mise wadan kale inay sii aadaan oo u imaadaan marka adina waxaa tahay su-aasha uu jeclahay waa in ku warsado adina maanta maadaama oo waqti badan aad meeshaan oo joogte 10 sano ku dhawaad maxaa uu tahriibaysa wadankan weligaa ma ku fikirtay in oo aad ka tahriibtid bis wadan kale oo aadid waa oo uu tahriibaysa ilaa hadda isla joognaan yani والله سؤال عادي هذا في عوال تهريب والله تهريب عادي ما هذا بليبا وحاجة سيدنا واحد جوا مقالة أو إسطنبول أو جوب أو ذات كلوكا للدرا بحاجة مال أو سومالي ستايل لها أو ريت تهريب ليدا نسكو معنا سومال محلها سومالي ستايل لها سومالي ستايل ما في عمي لا تهريب ليدا تتاجيني هنا لوجود درا runtii magaalada Istanbul dad badan oo ku tagay aniga inta joogo markino waxa waa boqolaal qof korkay ku imaaday ku tahriibtay runtii dad ka saayo dad oo sidoo kale aniga oo kala ah waxbarasho u imaaday oo tahriibay way jiraan marka runtii ima yar dad oo korkay ku tahriibay laakiin aniga saa sheegtay ilaa haddana ma tahriibin oo marnaba isku ma dayin runtii marnaba kuma fikirin inaad tahriibo waayo waa go'aan shakhsiyeed go'aan shakhsiyeed waaye oo shakhsi ahaan aniga u gaaray waaye oo waayo aniga marnaba ma jecelaysan inaan dalka la aado sababaha waxay ka mid tahay tusaale ahaan aniga maanta markaa dalkaan imaanayay waxaa u imaaday waxbarasho u imaaday markaa imaanaynay waxaa xasuustaa boqolaal qof oo safka ku jiraan oo dad aniga ila mid ah oo ayagana rabay inay maanta imtixaankan inay galaan ay fursad u helaan inay waxbarasho u helaan maanta waxaa laga yaabaa dad oo aniga iga mudan mise dad iga sii baahan inay waxbarasho free helaan inay heli lahaayeen maanta booskaas aniga maanta aan ku jiro marka waxaa aaminsanahay maanta haddii aniga tahriibi lahaa oo fursadan anoo helay oo waxbarashada anoo helay haddii aniga tahriibi lahaa maanta xaq maanta qof Soomaaliyeed oo dalka joogo oo asigana rabay inuu aniga camal uu soo baxo laakiin heli waayay inaan booskiisa ka buuxiyo aan ka khasaariyay ay noqon lahayd marka xaq bay igu leeyihiin maanta aniga waxbarashadan aan dalkana soo aaday kaliya ma wax aniga mas'uuliyad aniga kaliya ah ma ahan waa mas'uuliyad dal dhan ba gadaal iga jirta oo wax iga sugaya family reer ba gadaalka iga jirta oo wax iga sugaya sida darteeda waxa at least ma rabin marnaba inaan noqdo qof oo ayaga ku xasidata sida darteeda marnaba kuma fikirin inaad tahriibo dad badan of course way jiraan inay tahriibaan sidoo kale dalalka Yurub هذا دب أفيرين رنتي ما أنت ما أمسين وين أو ساس وين إني يالن وحاوجينا ما أنت أدينا وأنكر جوك تسومالي بدنا جوجان أو دلك إنجليز كيوبتان أو دن كسوجورة إلما هذا كسوبتي أو دلك أنا سودجي تاسي وحنا تسيني سان ما أنت دلك إن يوروب أيسن واحد ساس وين أيسن جيرين سواء كلا مسلمين تلو قدي باي فرنسا إيو ودمدا كلبا مسلمين إنay aad uga dhiban yihiin ayna ka doorbidaan dadka inay ku noolaadaan dalkan Turkiga ma ahan dal yar ma ahan maanta waxay kaga hormarsan yihiin dhaqaale ahaan iyo waxyaalo badan ay kaga hormarsan yihiin dalal badan oo Yurub ah qaabkay u dhisan tahay runtii marka dadka qaar oo Yurub ka imaada markay imaadaan waxay leeyihiin warniyo saxaw wallahi dalkan boqolkiiba way ka hormarsan tahay meesha ka imaanay ay ku leeyihiin laamiga hadaan dhahdid basaska qaabka loo raacay hadaan dhahdid waxbarashadooda hadaan dhahdid inay aad ugu heersadayaan wadamo qaar oo Yurub ku yaalan sida darteeda sababahaas ugu weyn of course dad badan waa jiraan oo tahriibay oo guul ka gaaray dalalkay tagaan taasina waxa ku sababa qofka shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay maanta of course Yurub hadaad tagtid wax weyn waa ka qabsan kartaa taasi qofka dadaalkiisa ay ku xiran tahay dad badan oo Turkiga joogay oo waxna ka qabsan way jiraan taas waxay ku xiran tahay qofka shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay maanta qofka hadduu Yurub aad oo guul ka gaaro runtii waa fursad asiga iyo awood iyo shaqo uu asiga sameeyay oo howlkarnimadiisa ku gaaray sida darteeda
qofka shakhsidiisa ay ku xiran tahay meel kastuu joogo meesha joogtid muhiim maaha adiga waxaa qabsataa markasta muhiim ah sidaa dartiisa u tahriibin asxaabta badana oo hadda i daawanaya oo maybe oo tahriibay oo halkan iga daawanayana halkan aan ka salaamaya أنا ما سلام أسعدتي ما أرت سعد هالبما قف كست شق هارا النقب ها وك مقلع عليه ما واسيبه نكرتها معنا تاسع سواه وين وتاسع كل شيء ما شاء الله حاليا ورتا وكو رعسنا ورتا بيننا معها قف كست الشخصية دي سجون قف كست وحوره وجون ما أنت أنا هدي أو إنا تهريب رو مسوح كل إنا سمير رو مسودن كل إنا أنقلا دارو وأنقنا قف كي أنت جويس تسرو قف كست الشخصية وأمريكا الشخصية داسي لكن ضد كل أصحاب كل أرضي كل ضد كل وحاجر أو لقيا قف كان صاحب كا تهريب أذن تهريب من أسبيس عمل تاس إن سمين له وحقوق في عن الشخصية دا مسكح دا جو مربتا تهريو مربتا مسودن كا إنا كلها تساربت لكن مسكح دا إنك شغل سيست مسكح دا سيربتا إن أوصل ميست تاس الشخصية دا سمح go-aanka inuu qofku gaaro markaas muhiima laakiin in hebeloona uu baxay in waa baxa hadii noqoto dad badan saas ku baxay waa laga fiican yahay aad iyo aad ها ما شاء الله أنا أما سنت حاليا ما أنت في عن وحفي عن إن كهذا أن سنة هاي جوابها أو ما أنت إستي أنا أما سنت هاي كلا حبيبي أنا أما سنت هاي أنتي فرصة دانا إستي ما أنت هنا أصحابنا كله sheekaysto adigna kula sheekaysto sheekadan waxaa waa sii wada karnaa ilaa dhammaad insha allah waxaa jeclaan lahaa in waqti badan inaa haysan anba waa jeclaan lahaa aad waqtiga zaaid noo yar xalay marka tan ugu dambeys waxris in uu ku warsadaa rabaa adii halkoo su'aal oo yaris laakiin taas oo ah maanta ardayda markay imaadaan oo meeshaan imaadaan waxbarashada markay u imaadaan markasto ardayga wuu rafaadaa waxyaalaha ku rafaadaa casharada duruusida mise waxyaalaha kale mise qofka markuu meeshaan imaado maxaa uu la talin lahayd casharka mise waxyaalaha oo adii tusaalaha iyo wanaag mise waxaa adii oo siin lahayd maxaa waay aniga runtii waxaa kula talin lahaa qof experience dalkan u leh hadaa ahay runtii waxaa kula talin lahaa maanta waa la soconaa Soomaalida aad bay ugu soo badanayeen dalka Turkiga oo maalin kasta diyaarada imaado maanta Turkish Airlines Somali halkan kasoo digta oo Soomaali badan wada marka arday badan way jiraan oo waxbarasho rabaa inay halkan ku bartaan marka waxyaalaha kula talin lahaa waxay tahay marka hore marka soo bixaysid waxaa ku soo baxda adigoo oo at least qorsho oo wax ku digsan at least haba yaraado wax weyn ma maanta planning weyn samayso ku dhahayo like at least waxyaalo qorshe yar inaa lahayd sababta oo imaanaysid waxaa sidoo kale ku xigo inaa dalkan marka imaadid waxyaalo badan waa la kulmi doontaa oo maanta dalkaaga hooyaa kasoo tegaysa familygaaga kasoo tegaysa dalkaaga kasoo tegaysa waxaa imaanaysa dal ku ajaanib ah luqadaada ka seenin dad kala duwan ay ku nool yihiin xataa asxaabtaada Soomaali joogan ay joogin asxaab badan oo asxaab duwan ku baran doontaa sidaa darteeda aad bay u adkaan doontaa wax fudud ma aha taas inaa horta maskaxda gelisaan laakiinse wax kasta waxaa adiga xalin kara tusaalahan waxaa idin kula talinaa bilowga markaad tahay halkan imaadid barrierka ugu horeeya mise derbiga ugu horeeya ku imaada inaa isla markiiba xalisid inaa isku daysid tusaale ahaan haddaa idin siiyo luuqadda halkan markaa imaadid waxyaalaha ugu dhibka badan aad la kulmi doontid waa luuqadda waxaa laga yaabaa maanta adiga inaad jaamacadda aad English ku baran doontid of course mise aad luuqadda Englishka ku baran doontid jaamacadda laakiin waxaa markasta laga maarmaan ah inaad taqaanid luuqadda Turkishka marka waxaa idin kula talin lahaa intaada imaanin inaad baratid حتى إنترنت كفيريس لوضع شيء هدا تاسنا أولين مركا إماديد با ويران سدح بلاد أو سكول أو تركيش إنا أديد أتليست مركا هذه سيد سوق واحد يبسين كرتيد إنتاس إسكبرتيد ولو قدر مشان أد بمهم تهاي تاسي وإن كلها تلنا هيا سيدو كلا سيد هذين هرو مشي هدف لهذا هدف كنا نقول لنا هذا أو صوت أو يمادنا قرت مركزتا هاي لا وين تاس ما شاء الله أنا أما سنتي حاليا ما أنت جوابها في عن موضوعي وحيالها في عن أنا كول شيء كسنة كنالك إماشها إماتي أنا أما سنتي أصحابتا كنالك حاليا إن أو سبسكرايب وسارتين أو فيديوش اسمه شكرعتنا إلوينا فيديو كان هذا كهشين سبسكرايب سارة كنالك مركو رئيسو فيديو لايك سارة أصحابتيني كلا دتكن كلا وأسيب قد بين كرتين
ادي انا ومحسنتين حاليا اسعدت مع سلامي ادي ومحسنتها حبيبي انه soo dhaweysay halkan asxaabta xabiibi sidoo kale kanaalkii waa la socon kartiin sidii sheegtay muuqaalo badan aan sameeyay insha Allah subscribe haday saartan waa jeclaan lahaa sheekadan waxa waa sheekada qiimo badan bay ahayd si fiican oo wada sheekaysan xabiiba adigna aad ugu mahadcelinahay مع السلامة هذه الليلة دمانتين مع السلامة أصحاب باي